masjidka qaadiireed ee magaalada Ceelgaab ayaa habeenkii xalayta lagu soo gabagabeeyay kutub muddo badan ka socotay waxaana kulankii gabagabada kutubtan ugu dambeeyay kitaabka sharxul manhajka oo masjidkan gudihiisa ay isugu yimaadeen culimo iyo ardaydii kutubtaasi u dhamaatay iyo waliba qaar kamid ah waayeelkii iyo dadkii kale masjidkan ku xidhnaaba halkaas ugu horeyn hadallo mahadnaq wacdi waano iyo dardaaran bay isugu jiray wax ka soo jeediyay imaamka masjidkan iyo xubno kale oo isugu jiray ardaydii kutubtan soo baratay iyo culimadii iyo waliba waxgaradkii kale ee kulankaasi ka soo qayb galay waxaana hadalladooda ka mid ahaa kitaabka safiinaha ugu horeeyay abu shujaaca ku xigay nihaayatu tadriibka ku xigay yaaqut nafiska ku xigay qawaacid fiqhiga ku xigay baab fadlaha ku xigay anwaalka ku xigay manhajka ugu dambeeyay inta oo kitaab baahada iska daba dhamaaday intaana fadligeeda iyo xasanaadkeeda waxa iska leh sheekayno marinayay ee dadkuna ay ka dhageysanayeen inta soo doonayay in la qaato oo la weelayo خاتم الله خير الجزاء إلهي خير هسي والله أنا ذا شيخ خيري وها وأنا شيخ توعرات وناكسن وكجد كدوني دينتا أما مشاهر وقاتها أنت أو مريني ومشاهر وكتاب كقاتي مترو إن بدن بانو وصل دور عدقني كتبتنا نزوف الديني عاو الحمد لله بعنا عاو حنوفنا وقول الدعاء أنا وحملنا ما عاو فرنسا ونوفنا waxaan leenahay marka koobaad waxa kaliya halka maanta inoo banaan waxay tahay inaynu u ducayno oo nala jazaakallahu khayra jazaa sheekh jaamac faarax ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigii badnaa ee aad dadka soo dartay allaha kugu maaragtay ajarkiisa iyo sawaabkiisa ha ku siiyo ardaydii ka baranaysay halka kan ee u soo dhabar adeegana waxaan leenahay jazaakumullahu khayr ilaahay ha idinka dhigo kuwa cilmigu anfaco meelo runtii adduun iyo aakhiro waxa inoo jarayso aynaan garanayn in la dhooban yahay maadaama waxa aynu u xafladeynayna uu yahay kutub culumtii shareecada ah runtii waa qiimo weyn bay leedahay waxaynu runtii u mahadnaqaynaa mar kale oo u ducaynaynaa sheekh jaamac faarax jaamac oo runtii aan u qirsannahay sida dhalinyarada ama ardadu ay sheegeen inuu cilmigan runtii tarxiyo badan ku bixiyey waxa ayaan darro ah oo runtii wax laga naxo ah in dhulka culumta shareecada ee quraanka tafsiirkiisu kow ka yahay axaadiistu laba ku tahay culumta fiqhiga iyo culumta shareecadu saddex ku tahay dhulka lagu baranayaa marka isa soo dultaagto inay faaruq yihiin oo dad yar oo tarteel fadhiyaan sida sheekhu uu waqtigiisa oo dhan ugu bixiyay علمي وجوبه فدنت علمي وجوبه برشة علمي وجوبه سكر الله من ذا لجاربه إن الأرض وجوبه سمات ما تعالى اسمك وقاضي شيخ بريتي هاك فريسنا يرد قطبة لجاربه ولما كان المقالة ما جوتاي وعلى السير الشيخة شيخ جامع وكله هذا ذكره وقال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس أنتم تعرفون أنتم كلهم علماء لا قال الله عز وجل أنتم خير أمة بل قال كنتم أي في علم الله الأزلي كنتم خير أمة عجب وإذنك سيدا وحسوا برانيسي إن إذن نبت بهدان دادك نبت بهدسان وعن كتال الله ورديتي لي نودري واتن وحي لهي وحي نودري والنبي نفر عليه الصلاة والسلام إن الدين تكشغينه وإنت يفك اللي تشوفه الشغيسنه إرسي إله باقري حولا إله باقري لكن إن الدين تكشغينه والله ينودري وعلى يديه الله شغي وكشغينه وقعباش قبصنه حنود عين يا شيخة يا أرضي كاف الحديد شيخ جامع الله بركيه ومضى روح بري كاف الحديد ومضي كاف الحديد إلهي كوضتك يضلك يقبرك بأنفعه الله كيه شيخ جامع وحملنا جزاكم الله خير أرضيدا وحبرتي مركوروهم بليننا إني كاميرا داليان إذا القضاء وقت قبل الحصول برانيين مرلبات كانوا وحملنا هاي أخوانتي أكبرتين إذا كنا كفايدة ومدة عادلة شيء ugu dambeyntiina sheekh jaamac faarax qudhac oo ah sheekhi kutubtan ka marinaya masaajidkan qaadiriga ee magaalada Ceelgaab ayaa halkaas ka hadlay waxaana hadaladiisa ka mid ahaa hagarteen in ragii soo fadhiistay kitaabkii buurnaana dhamaaday masaladiina ragintay dhex galeen iyagu masaa'il kale ka soo saaray
raggaas oo ducaynayna Allah waxaan ka baryaynaa ilaahay xagga siiyo diinta tawfiiqdana Allah waafajiyo qalbigana Allah u furo maskaxdana Allah u geliyo وعبد الله حسن درويش Somali Cable TV Ceerigaabo